waxaa jirta xikmad la hayso qofka bini aadanka haddii uu ka dhinto qalbiga waxaa ka guurta naxariista oo dhan qof qalbi adag naxariis ma laha sidoo kale jaceylka iyo naxariistu isku xiran yihiin oo qof naxariis leh oo wax jeclaado laakiin qof qalbi adag way adagtahay wax ku jeclaado tan labaad waxaa la dhahaa qofka haddii caqliga ka dhinto waxaa ka guurta xikmadda oo dhan qofka xikmad ma laha waxaa arkay qof weyn qolofka weyn yahay laakiin wax xikmad aan lahayn qofkaas caqligu ka dhintay tan saddexaad waa damiirka qofka bini aadanka damiirka hadduu ka dhinto wuxuu noqonaa sida xoolihii camal oo wax walbo bini aadanka sharaf lahay karaamo lahay qofkaas waa ka dhintay bini aadanka sharafkiisa waa damiirkiisa waay haddii damiirka qof mar ka tago wuxuu rubo samaynaa dhaqan kastoo ku dhaqmaa mararka qaar waxaa arkay qof weyn waa isleedahay qofkan maxaa ka qaldan dhaqamada iyo waxyaaba uu samaynayo qofka damiirku ka dhintay marka damiirka waa waxa qofka kontrolo qofka inuu tiktok soo galo ama social media dharka tuurto qofka asaga maaha laakiin damiirka waa damiirka ka dhintay qofkaas marka waa saddex shay muhiim waay caqliga qofka qalbiga qofka iyo damiirka qofka saddexda qofkay ka dhinteen waa qof dhamaaday